assalaamu calaykum. Haddii aad u fiirsato dhammaan sheekooyinka ku tacalluqa dadka guusha gaadhay, magacyada, jinsiyada iyo meesha lagu nool yahayba ha ku kala duwanaadeena, waxaa dhab ah inay ka midaysan yihiin caqabadaha iyo duruufaha kala gedisan ee ay waajahaan intay ku guda jiraan socdaalkooda guusha iyo sida ay uga dabaashaan caqabadahaasi. Saleebaan Maxamed Faarax wuxuu sanadkii 1994 ganacsigiisa ku bilaabay tanag timir ah oo uu dul suray miis iyo dalaayad uu ku qotomiyay meel dhinaca ku haysa jidadka waaweyn ee magaalada Hargeysa midkood oo ku dhex yaala goob suuq ah oo noocyo kala duwan oo ganacsi ah ay ka socdaan. Waxay ahayd waqti adag oo gobolada waqooyi ay markii uun ka soo kabanayeen dagaalo muddo socday oo lagu waayay mood iyo nool barakac baahsan sababay. Waxay ahayd waqti nolosha dadka ku dhaqan Hargeysa ay aad u adkeyd iyadoo ay ugu wacneyd deganaansho la'aan dhinaca ammaanka ah, sixir bararka, maciishada oo aad u sareeyay iyo dhibaatooyin kale oo badan. Markii uu iibsaday taniga timirta ah, wuxuu siistay $21 oo uu soo amaahday, waxaana maalintiiba ka faa'iidi jiray $1 oo kaliya. Wuxuu ahaa qof aaminsan naftiisa isla markaana aaminsan inuu ka dhabayn karo horumarna uu ka gaari karo ganacsiga yar ee uu bilaabay. Maxamed markii uu muddo bil iyo badh ah waday ganacsiga ee uu faa'iido yar ka qabtay timirtii uu iibinayay, ayaa wuxuu bilaabay inuu soo kordhiyo miis lows iyo cananis uu xidhxidhi jiray. Markii uu waxoogaa faa'iido ah ka qabtay intii ayaa waxa uu uga dig rogtay inuu iibiyo dharka bacadlaha ah, isagoo iibin jiray kaba yar iyo dhar yar oo ay dadka danyarta ah ay xidhaan, isagoo markii dambe ganacsigiisii u sii ballaadhiyay inuu keeno daahyada guryaha lagu xidho. taasina ay u saamaxday inuu madaxa la galo nooca ganacsiga uu maanta ku guda jiro oo ka kooban qalabka qurxinta guriga iyo qalabaynta xafiisyada. Maxamed Saleebaan haatan astaantiisa iyo magaca meheradiisa waxaa si weyn looga yaqaanaa geyga ay Soomaalidu degto, isagoo ay alaabtu uga soo degto wadamada dibadda sida Shiinaha iyo Turkiga, waxaana qaar badan oo alaabtiisa ka mid ah lagu farsameeyaa wadanka gudihiisa. Maxamed Saleebaan imika waa mid ka mid ah mulkiilayaasha shirkadaha ka ganacsada qalabka guryaha iyo xafiisyada. Shirkadiisana waxaa lagu magacaabaa Al-Hayat Furniture and Home Decoration. Maxamed waqtigan waxaa hantidiisa lagu qiyaasaa $2 milyan oo uu ka soo bilaabay $15 oo uu siistay tanag timir ah isagoo aanu qofna caawin. Casharada laga baran karo sheekadani waxa ugu muhiimsan qodobadani: adoo ka bilaabay meel hoose ayaad gaari kartaa meel sare. Maxamed wuxuu ka bilaabay ganacsigiisa $15 oo uu siistay tanag timir ah. maanta hantidiisu waxay gaaraysaa $2 milyan haddii aad aaminsan tahay awoodahaaga iyo inaad guul gaari karto. meel hooseba aad ka bilowdeeda waxa aanu shaki ku jirin inaad maalin uun gaari doonto halkaad rabto. isbedbedel yeelo. Maxamed ganacsigiisa wuxuu ka bilaabay tanag timir ah, balse kamuu joogsan intaas oo kaliya ah ee wuxuu ku fikiray sidii uu u ballaadhin lahaa ganacsigiisa si uu u gaadho yoolkiisa oo ah inuu noqdo ganacsade weyn. ku fikir inaad samaysato ganacsi. Maxamed wuu awooday inuu shaqo uu nolol maalmeedkiisa ku dabaro uu helo, balse wuxuu ka doorbiday inuu samaysto ganacsigiisa walow faa'iidada uu ka helaya haba yaraatee. jooji inaad ka cabato caawimaad la'aan. Maxamed intii uu horumarkaa sameynayay ma jirin qof caawiyay isla markaana soo gacan qabtay. inaad curdaar samaysataa oo wax fudud, balse ogow inay dhabar jab tahay. wassalaamu calaykum.